بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada cashirkeena maanta. weli waxaa dhexda ugu jirnaa view groupka gaar ahaan linear layout-ka. maanta waxaan baranaynaa wax la yiraahdo layout way. waxaan arki doonaa maxaa ugu baahanahay, muxuu yahay, muxuu naga xalina. marka hore aan fiirino waxyaabihii hore aan u soo aragnay. marka taleefanada aad ay u kala duwan yihiin oo Android-ka lagu isticmaalo barnaamijkaaga uu ku shaqeyn karo. waxaa la isticmaali karaa taleefan tablet, taleefan shaashadiisa weyn tahay. waxaa la isticmaali karaa isla taleefan si jiif ah loo qabto, laftooda shaashada waxa saaran way isbedelayaan. marka tusaalahan hadda inta noo saaran waxaan haysanaa 3 text view, midna ay ku qoran tahay Tom, Tim iyo Todd. waa tusaale oo kaliya. haddii mobilkaaga ama barnaamijkaaga mobil noocaan ah uu kiciyo nooca hore portrait mode, mobil normal ah, haddii lagu kiciyo saddexdaada elementi ama saddexda text view waxay noqonayaan qofka userka kuwa caadi ugu muuqdo. waxaa laga yaabaa inay markaas dhib uusan ku qabin aan lahaa gacantiisa iyo taleefankiisa elementi markuu dooranayo si nadiif oo ku shaqeynayo. problema wuxuu imaanaa marka loo qabto taleefankaas oo applicationka ku jiro qaab jiif ama landscape mode. problemka imaanaya waxaa waaye elementigaaga ama waxyaabihii qofka userka uu isticmaali lahaa ama uu aqrin lahaa ama dhinac yar ee tagayaan. shaashada waxaa soo baxayso space badan oo aan laga faa'iideysanin shaashada. marka qofka userka waxaa laga yaabaa inuu weli isticmaali karo, laakiin user experience ahaan waxaa fiican in spaceka shaashada mar walba laga faa'iideysto. haddii taleefanka ama applicationkaaga lagu isticmaalo tablet, waxaa soo baxaya spacekii hore space ka sii badan oo aanan applicationka uusan ka faa'iideysanin. marka problemkaas ay lagu xalin lahaa. meeshaas waa meesha ay ka imaatay waxa maanta aan baran doono oo ah layout way. layout way-ka micnaheeda waxay ka dhigan tahay spaceka banaan ee shaashada in la qaybin karo oo loo qaybin karo elementiyada shaashada saaran. tusaale ahaan shayga ugu horeeya 33% inuu qaato, shayga labaad 33% inuu qaato, shayga saddexaadna haddii saas la sameeyo maxaa dhacaysa boqoley ahaan shaashada loo qaybiyo. taleefanka haddii la gediyo oo landscape loo qabto mar walba boqoleyda way shaqeynayaan 3 meelood meel oo element walba hela. marka waxaa imaanaysa inuu applicationkaaga meel walba la geeyo ama mobile walba lagu isticmaalo qaabkiisa oo constant ahaa uusan isbedelin. shaashadana uu ka faa'iideysto userka. haddii applicationka markuu mobile yar ku isticmaalayo nooc uu yahay, mobile weyn markuu ku isticmaalayo nooc kale uu yahay, laba application kala duwan camal oo dareema inay hal application isla yihiin ma dareema. sidee loo sameynaa? Android Studio aan furan. halkan waxaa ii furan cashirkii hore meeshaan ku sameynay. marka hore waxaa tagay project view, drop down-ka fure. hadduu wax kale ku duwan yahay waxaad dooranaysaa Android view. Android view markaad dooratid package-ka weyn appka fure, folderada hoos imaanaya ama package-yada hoos imaanaya waxaa kasii furaysaa resource waxaa furaysaa layout waxaa ku jiro filekan hadda aysan oo activity menu ku qoran tahay. waxaan sameynaynaa file cusub oo layout resource ah. filekaasna waxaan u bixinaynaa sample layout. marka file XML la sameynayo shuruudaha waxaa ka mid ah in dhammaantooda magaca u bixinaysid ee ahaada small case. haddii ay jiraan 2 eray ama 3 eray oo uu ka koobnaado magaca u bixinaysid waxaa u dhaxaysiinaysaa dash, calaamada dash. hadaa capital ka dhigo wuu iga diidaa. qaybtan hoose waxaa arkaysaa L is not valid. dash ka dhigaysaa layout u bixinaysaa. marka capital letterna ma laga ogolo, spacena ma laga ogolo. marka waxaa sameynaynaa labada magac oo small letter ah waxaana u dhaxaysiinaynaa dash. tusaalihii hadda aan arkayna si aan u hirgelino, marka hore waxaan u baahanahay elementiyada. waxaan sameynaynaa 3 elementi ugu horeeya text view. hadda markuu Android text waxaan ka dhigaynaa Android text waxaan ka dhigaynaa text 1. haddii design-ka imaano textiga waa arkaynaa. si xoogoo noogu muuqato waxaan bedelaynaa text size-ka. waxaa ka dhigaynaa size-ka waxaa lagu cabiraa SB 24. haddaan ka dhigo text size-ka xoogoo ugu balaartay. waxaa haysanaa marka hal text view oo noo muuqda. waxaa ku qoran text 1. waxaa kaloo u sameynaynaa background color accent text 1 na ku qoran. waxaa kaloo sameynaynaa another text view. sidaan hore usoo baranay linear layout-kan oo parent-iga ama root elementiga orientation-kiisa maadaama vertical uu yahay waxay isugu xigsan doonaan si joog ah. text view kala keenay text view 2 aan ku qoraa. design-ka haddaa tago 2 text view aan meesha ku haystaa. background-nadooda way isku egyihiin.
primary haddaan ka dhigo okay midna waa cagaar midna waa guduud mid kale oo 3 aan sameynaynaa sida kan kore oo kala ka dhigaynaa text view 3 da design ka furno waxaa haysanaa 3 text view mid waxa ku qoran 1 mid waxa ku qoran 2 midna 3 ku qoran marka hore waxaan sameynaynaa width kooda waxaa ka dhigaynaa match parent width match parent okay width match parent marka ka dhig waxay qabsadeen intee shaashada la egtahay okay tan maxay naga saaciday marka haddaan landscape ka dhigno width ka shaashada way haystaa from start to end haddaan portrait ka dhigno width ka shaashada way haystaan from start to end okay marka xiga waxaa rabnaa in height kooda aan qaybino marka inta soo hartay height-ka inaan u qaybino si aan height-ka u qaybino height-ka waxaan siinaynaa 0 intaanan taas ku hormarin haddaan layout height match parent aan ka dhigno midkood maxaa dhacaya midka match parent aan ka dhigay meesha dhan wada qabsanaya tusaalaha hadda waxaan ka dhigay match parent 1 aan ka dhigay meesha dhan 1 aan wada qabsanaya haddaan match parent-ga aan celiyo oo aan 2 match parent ka dhigo height-kiisa maxaa dhacaya meesha dhan midka hore wuxuu qaadanaa 1 laakiin inta ka soo hartay waxaa qaadanaya 2 3 qadka oo ka baxa haddaan ka dhigo midka saddexaad match parent 1 iyo 2 waxay qaadanayaan inta iyaga ku filan inta ka soo hartay waxaa la siinaa number 3 oo shaashada inta soo hartay oo dhan number 3 qabsanaya anaga marka taas ma rabno waxaan rabnaa shaashada in la kala qaybiyo nin walba 3 markii loo qaybiyo qayb ka mid ah inuu helo step koowaad waxaan sameynaynaa height kooda waxaa ka dhigaynaa 0 dp height 0 dp waxaa dhacaya marka wax height dhan ma laha lama soo bandhigayo okay step koowaad waa sameyn step ka labaad waxaa keenaynaa wax la lahayo weight layout weight waxaa dhahaynaa android weight 1 layout weight-ka midka kore text view 1 waxaan sii 1 text view 1 hadaa siiyo wuxuu qaadanaa layout weight-ka dhan oo qaadanaa sababtoo layout weight-ka waa 100 ama waa hal halkaasna waxaa qaatay text view 1 okay sidoo kale kuwa kalena wax layout height dhan ma laha sidoo kale view 2 hadaa imaado ama layout weight-kiisa aan 1 ka dhigo maxaa dhacaya text view 1 waxay qaadatay 50 text view 2 na waxay qaadatay 50 okay hadda waxaa siinaa marka 3 okay 3 markaa siiyo waxaa rabaa inay saddexdooda kala qaataan layout weight-ka linear layout-ka waa 3 saddexdii maxaa kala qaatay 1 iyo 1 iyo 1 ay kala qaateen mid walba wuxuu helaa 33% haddii landscape laga dhigo shaashadii oo dhan waa wada qabsanaa kana 33% kana 33% kana 33% haddii landscape aan isticmaalno ama portrait mode aan isticmaalno boqolkiiba mar walba waxay kala qaadanayaan 33% mid ma siin karaa 50% labada kale ma siin karaa 50 ka soo haray inay kala qaybsadaan haddaan siiyo kan 2 hadaa siiyo kuwana 1 aan siiyo kii 2 aan siiyo muxuu qaadanaa 50% kala soo haray text view 1 iyo text view 2 waxay u kala qaadanayaan 50-50 hadaa tusaale oo real life aragno application isticmaalaya layout weight waxaa ka mid ah application-kan hangout waxaan filaa inaad hore u aragteen ama qaarkiinba ay isticmaaleen qaybtan hoose ee calaamada saaran waxaa isugu jira 3 shay shayga koowaad oo icon shayga labaad oo edit text iyo shayga saddexaad oo button waxay ku jiraan linear layout oo horizontal oo jiif laakiin layout waxaa la kala qaybiyay layout width kooda height kooda wrap content sababtoo height-ka ma la rabo in la kala qaybiyo markaan waxaa la kala qaybinaa layout width ka maxaa laga dhigay waxaa laga dhigay width-kiisa wrap content kana maxaa laga dhigay width-kiisa wrap content laakiin edit text-ga width-kiisa maxaa laga dhigay 0 laga dhigay okay kan weight waxaa la siiyay 0 image-kan button-kan oo attach-ka weight waxaa la siiyay 0 edit text-ga weight-kiisa 1 laga dhigay taas macnaheedu waxaa waaye inta space free soo hartay marka ninkan image-ka kistiisa oo qaato button-kan kistiisa oo qaato inta space free soo harto waxaa qaadanaya edit text-ga email-ka marka compose dhahdid oo aad email diraysid dhamaantooda from iyo to waxaa laga yaabaa content-ga meeshaas laga rabo
hal line inuusan ka badan. Okay, laakiin compose meesha ay ku qoran tahay xogta ama fariinta baadhigeeda aad ku qori lahayd way ballaaran tahay, xog badan aan galayso. sidaas darteed maxaa la sameeyey saddexda edit text kore wrap content waxaa laga dhigay height kooda, weight koodana waxaa laga dhigay 0. okay, xogta intay ku qoran tahay weydadkooda waxaa laga dhigay 0, compose-ka height-kiisa waxaa laga dhigay 0, weight-kiisa waxaa laga dhigay 1. markaas maxaa dhacday in allaale inta soo hartay inuu compose-ka qaado. waxaan rajaynayaa inaad fahamteen. intaan ka kulmi doono cashirkan cashirka xiga waxaan idin leeyahay nabadgelyo.